Assalaamu calaykum. Maanta muuqaalkan waxa uu hadli doonaa filim lagu magacaabo Downsizing. Waxa uuna soo baxay sanadkii 2017. Filimkani waa filim saynis ah oo cabsi iyo argagax leh. Haddaba ila soco. Kani dhab ahaantii aad ayuu ugu yaabadan yahay filimada kale. Filimkani Downsizing waxaa laga wadaa in qofka dhirirkiisa la yareeyo ama da'diisa. Nisyahanku waxa uu ikhtiraacay hanaan ninka lagu dhimi karo cabirkiisa. Magaca habkani waa downsizing. Bani aadam ah waxaa laga yareyn karaa ilaa 5 inji iyadoo loo marayo habkan. Muddada ka dambeysa downsizing waxay ahayd kheyraadka ayaa ka yaraa dadka oo batay awgeed. Way iska caddahay in ay halis tahay. Haddaba saynisyahanku waxa uu hindisay habkan. Sidaas awgeed bani aadamka waa la dhimi doonaa in tiro yar waxaana sidoo kale la ilaalin doonaa kheyraadka. Hadda nin yar ma ka faa'iideysan karo kheyraadka inta uu nin weyn isticmaalo. Laakiin isticmaalayaasha habkan downsizing waa inay ilaaliyaan qaar ka mid ah sharciyada. Haddii habkan hoos u dhigista lagu dabaqo bani aadamka hal mar, cabirkiisa looma rogi karo caadi oo dib looguma soo celin karo sidiisii uu hore u ahaa. Macnaheedu waxaa weeye in uu ninku ahaan doono isagoo yar weligiis. Jiilka soo socda sidoo kale waxay noqon doonaan mid aad u yar. Hadda ikhtiraacaan waxa uu noqday mid ku faafa adduunka oo dhan. Dadka qaar ayaa garab ku siinaya halka kuwa kalena ay ku xumaadeen. Dadku sidoo kale waxay ku dabaqaan nidaamkani iyaga oo jecel hoos u dhigista cabirka yar bani aadamka ayaa ku qanacsan noloshooda. Kadibna lamaana ayaa goobta soo galay. Magaca ninku waa Paulos. Labaduba way jecel yihiin habkan markay maqleen arrinkani. Paul waxa uu rabaa marar badan in uu maro habkan dhimista. Laakiin ma uu helayn geesinimo uu sidaasi ku sameeyo. Maalin maalmaha ka mid ah Paul wuxuu aaday xaflad halkaas oo kula kulmay mid ka mid ah saaxiibadiisii iyo xaaskiisa kuwaas oo ku faraxsanaa noloshooda kadib markii la yareeyay iyadoo loo isticmaalay habkan. Waxayna ku imaadeen xafladan sanduuq yar oo dhalo ka samaysan. Paulos aad buu saaxiibkiis ula sheekaystay waxa uuna yiri aad ayaan ugu qanacsanahay nolosheyda kadib markii aan codsaday habkan dhimista. Waxaa jiray dhibaatooyin badan oo nolosheyda ah markii aan weynaaday. Hadda aad ayaan ugu qanacsanahay nolosheyda. Hadda waxaan noqday qof qani ah. Paulo iyo naagtiisa aad bay wax u dareemeen. Waxayna dareemayaan qanacsanaan oo labaduba waxay sidoo kale go'aansadeen. Paulo iyo xaaskiisa waxay soo booqdeen kulankani downsizing-ka si ay aqoon dheeraad ah ugu helaan. Waxaa loo sheegay in hantidooda loo kordhin doono iyagoo cabirkoodu yar yahay. Markiiba sida uu u weyn yahay buskudka ma damin karo rabitaanka cuntada. Laakiin hal buskud ayaa ku filnaan doona inay buuxiyaan rabitaankooda maadaama uu yahay mid yar. Ay maalmo badan ugu qaataan hal baakad oo buskud ah. Hadda baahiyahooda aasaasiga ah ee rabitaanka cuntada waa la dhammaystiray. Hadda naag ayaa u sheegtay Paulos iyadoo aragtay hantidiisa. Hantidaadu waxay horseedi doontaa 200 oo milyan marka lagu dhimi doono. Markuu maqlay Paulos wuu ku farxay laakiin arrintu waxay ahayd tan ma soo laaban karaan. Cabirkooda weyn kadib markay yaraato qaraabadooda waxay ahaan doonaan kuwo weyn. Sidaas daraaddeed xiriirkooda qaraabadooda wuu dhammaan doonaa. Oo wax kasta oo aan dabiici ahayn oo go'aankooda oo jirkooda ah waa la soo saari doonaa. Sida ilig macmal ah ayaa sidoo kale laga soo saari doonaa. Maxaa yeelay jirka bini aadamka oo kaliya ayaa la dumin doonaa. Ma aha waxa jirka ku jira oo go'an. Sidoo kale saynisyahanku waxa uu ka saaray timaha jidhkiisa oo dhan. Iyagoo diyaar ah labadaba nin iyo naagtaba. Paulo ayaa marka hore maray downsizing-ka weli laguma dabaqin xaaskiisa. Paulo waxaa loo diray qol uu dhakhtarku ku jiray isla markiiba dhakhtarka waxa uu taabtay badhanka. Markaas habka downsizing-ka waa la bilaabay. Waxaa kale oo jiray dad kale oo ay la socdeen Paulos kuwaas oo kulligood la yareeyay. Kadib markii la yareeyay Paulo wuxuu ku jiiftay sariir. Kadib mas'uulkiisa ayaa u keenay buskud laakiin Paulo ma qaadan buskudka oo waxa uu wacay naagtiisa. Xaaska Paulo ayaa ii sheegtay in aan joojiyay qorshahan. Waxay la macno tahay inaanan ku socon nidaamka downsizing-ka. Runtii markii Paulos naagtiisa timaha laga gooyay waxa ay isweydiisay maxaad ku samayn doontaa habkani. Waxaad dooranaysaa waddo sax ah. Maxay tahay ujeedada noloshayda oo kaliya. Kaloo dareensan tahay inaysan weligeed la kulmi karin qaraabadeeda. Sidaas daraaddeed dhinac bay u dhigtay qorshahani. Markii uu maqlay iyada Paulos waxa uu bilaabay dagaal badan. Sababtoo ah wuu yaraaday oo cabirkiisa dib uma rogi karo. Isla markaasi waa la furay. Sababtoo ah hadda ma wada noolaan karaan. Paulo wuxuu u guuray meel kale si uu u hogaamiyo noloshiisa. Shani waxa ay si gaar ah ugu ahayd dadka downsizing-ka lagu sameeyay. Paulos wuxuu kulligiis ku noolaa guri halkaasi ku yaala. Maalintii xigtay wuxuu daawaday warkii uu maqlay in sanduuq laga soo diray Ameerika. Halkaas oo ku dhawaad 15 qof ay halkan imaanayeen kadib markii ay mareen habka downsizing-ka.
dhammaantood way dhinteen marka laga reebo hal gabar. Paulos waxa uu seexday gurigiisa isaga oo kasoo laabtay xaflad. Maalintii xigtay waxa uu markhaati u yahay isla gabadhii uu ka daawaday warka TV-ga. Dhab ahaantii inantaasi waa guri la'aan. Paulo markaas labadoodaba midba midka kale wuu xiiseynayaa. Waxay bilaabeen inay isjeclaadaan. Kadib meel burbursan ayaa sidoo kale lagu muujiyaa halkaas, oo weliba waxay ahayd aagga dadka tirada yar. Waxay ahaayeen dadka loo maray habkan downsizing-ka laakiin si qaldan loo maray. Halkan bay degan yihiin. Waxay la macno tahay inaysan wax faa'iido ah ka helin habka hoos u dhigista. Noloshoodu waxay la mid ahayd waqtigaas oo ay aad u weynaayeen. Ma aysan helin saameyn xooggan. Dabadeed Paulo wuxuu go'aansaday inuu meeshaasi aado, meesha hawsha laga bilaabay. Saynisyahankan oo isaga isku dabaqay ayaa ku noolaan jiray meeshaasi sababtoo ah Paulos wuxuu rabay inuu ogaado ama laga yaabo inuu ku koray cabir weyn si uun. Saynisyahanku waxa uu sheegay in aan alifay habkani gan weyn oo aan ku ilaalin lahaa dunida, laakiin xaqiiqadu waa tan hadda oo aan lagu kordhin karin cabir weyn. Had iyo jeer waxaad ahaan doontaa mid yar oo sidan oo kale ah. Hadda Paulo wuxuu kaloo ogaaday inuusan hadda noqon karin nin weyn, laakiin wuxuu ku qancay oo helay wehel wanaagsan oo u ah gabadhaas. Waxaana laga yaabaa inuu noloshiisa kula noolaado farxad. Wax khatar ah lagama filan karo halkan, weligeedna ma dhammaan doonto. Markaasi ayuu filimka sidoo kale ku soo dhammaaday. Mahadsanid.